gabadha halkaa idinkaga muuqato waxay la soo baxsatay wiil iyada ay dhashay. sababta wiil ay dhashay ee ula soo baxsanaysa maxay tahay? haddaba gabadha waxaa lagu magacaabaa Faa'isa, wiilka kale Cabbaas lagu magacaabo ayay ubadka isku dhaleen sida ogtiin. way kala tageen dacwad dheer oo qoysaska labada dhinac dhex maray kadib waxaa la go'aamiyey in wiilka uu korsado oo la siiyo aabihiis oo Cabbaas ahaa. mar walbo oo ay rabtay inay aragtana xaafadaas ugu tagto, meeshaas kusoo salaanto, ka soo laabato. inta badan maalmihii u dambeeyay Kenya ku sugneed sida muuqaaladeeda ka arkay. haddaba waa taqaanaa hooyo wax dhashay way ka ahaan weyday wiilkeeda inuu meel kale ku noolaado. arrintan horaa go'aan looga gaaray oo qoysaskiya go'aan ka gaaray in wiilka uu haysto aabihii iyo ciddiisa. haddaba maxay samaysay gabadha oo maanta hadal haynta ugu badan dhaliya saaxiibayaal? waxay samaysay gabadhan Kenya ka soo baxday sida caadiga ah, Muqdisho ay imaatay. mar walba waa loo ogolaa inay booqato wiilka. laba sheeka isgarab socoto. midda xaqiiqda aniga ma hayo, labadaba waa idin sheegaa. reality-ga iyaga og cidii iyo labada qoys labada qofood oo mid waxa ay tahay in gabadhu ay cidda u tagtay wiilkii oo xaafada ka maqan, yacni TikTok iyo wixii iskaga mashquulsan oo iska maqan. sidaa daraadeed wiilkeedii la kulantay, gas la soo siisay, daaragti la baxsatay, meeshay martay way ii dambeynay. midda labaad maxay tahay? midda labaadna waxaa lagu sheegay saaxiibayaal inay booqatay oo waxaa jiray ogolaanshiyo markii ay Muqdisho joogto inay wiilka wadan karto oo maalmo ay soo heesan karto, kadib markii ay baxaysana ay soo celiso oo qoyska ku soo celiso. alxaasin miday rabtaa noqoto ha ku soo qaatee, xeeladay rabtaa ha ahaatee, wiilkii adigu gurigii way ka soo waday. waxay la martay jidkan dheer ee Muqdisho ilaa isku xiro Dhobley iyo halkaas iyo waxay ka soo gelisay Doolow, halkaas ay Kenya ka gelisay. gabadhu waa gabar caan ah oo meediyaha aad u isticmaasha. riskigaas oo dhan iyadoo la yaqaano intaasoo dhula waxay u jeexday oo dad walbaba ku nool yihiin. wiilkaas ay jeceshahay si ay ugu la noolaa lahayd meel aan laga soo qaban karin, xoogaa ula fogaan lahayd. Kenya meel ka fog oo ay gaari kartana ma jirin, waa meeshii ay islahayd waa kugu badbaadaya. haddaba muuqaalkaasi soo duubtay iyadoo wiilkeedii ku faraxsan inay haysato. haddaba wiilkaa ma ka soo celin lahayd tala ahaantaada sidii hore ma samayn lahayd mise ha loo daaya ayaa dhihi lahayd si ay u korsato? aniga taladeeda aan bixinayo waxay tahay hooyo wax dhashay ubadkeeda wax uga roon ma jireen. wiilkaa dhalay wiilka waxaan dhihi lahaa iyo qoyskiisaba uga tanaasula, gabadhaa kuna ogaada, kor kala socda. macnaha waa hooyo u dhaafa wiilkeeda. adigu tala kale hadaa heedi bal qaybta comment ugu soo wadaag saaxiibayaal. muuqaalka si oo meel dheer u gaaro laga yaabo qoysaskaas inuu gaarane, fadlan sii share garay, like taaduna waa muhiim. aad baa u mahadsan tahay, falowdana haga hilmaamin.